shilalka gaadiid ee ka dhaca Muqdisho kuma koobno oo kaliya bajaaj laakiin kuwii ugu dambeeyay ee dhacay sanadkan ayaa abuuray baraarug weyn oo ay tahay in xal loo helo si loo yareeyo Muqdisho waxaa ka howlgala qiyaastii 20,000 oo bajaaj oo shaqo abuur u noqday dhalinyaro badan kuna tiirsan yihiin qoysas Soomaaliyeed hase yeeshee 9 bilood ee la soo dhaafay waxaa dhacay in ka badan 800 oo shil oo 602 shil oo kamid ay yihiin shilal mooto bajaaj 825 shil dhacay January ilaa iyo September 602 shil oo mooto bajaaj kaliya 223 waa gaadiidka kale shilalkaas dhimashay leeyihiin dhaawac way leeyihiin dhaawac fudud iyo dhaawac culus nooc walba isugu jiraan bishii sagaalaad aynu soo dhaafnay waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay 98 shil oo 73 shil oo kamid ay sababtay mooto bajaaj kuwaasi oo dhaliyay dhimashada 8 ruux iyo dhaawac ku dhawaad 9 ruux oo kale oo qaarkood ay soo gaareen dhaawacyo culus bisha sagaalaad shilalka dhaca guud ahaan markii la dhaho shil guud 98 shil dhacay shilka guud ahaan way shilkaas guud ahaanta 98 dhacday qayb kamida 73 mooto bajaaj 73 gaadiidka guud ahaan markii la xisaabo 181 way gaadiidka guud ahaan baaskiil ku jiro ayu nooc rabo gaadiid ah 181 waas 73 ka tahay dhimasho 8 qofood dhimatay hal qof mooto lawalogaalay ka wadayaasha bajaajtu waxay qabaan in shilalka dhaca ay jiraan dhinacyo kale oo sababtooda qayb ka ah bajaajta kaligeed ma in la taageereeyo amba xaggada lagu jeesto ma noqon karo qaarkeen way dhowraan dadkan ilaahay shanta farad ma simin Soomaalida isku mid maaha qofna waxa way ambalaas camal oo seegantama qofna waxa weeyaan si oo khiyaarnimo oo reer magaalnimo oo shuruucda shay taabacsan oo ku socda taliska ilaalada wadooyinku waxa ay ku sheegeen sababaha ugu weyn ee kordhiya shilalka in wadayaashu aanay ixtiraamin shuruucda marista wadooyinka waxa soo wax aqoon ay leeyihiin mala bahalahan way iska wataan waxay ku socdaan saadkii baawrka ay ku lahaayeen laam ay ku lahaayeen sida aanan iska galayaan mar raacayaan sharciga inay hoggaansamaan oo ay saadka ay ku leeyihiin jidka ay ka raacaan meesha rabaan isaga ordayaan si sharci darra maamulka gobolka Banaadir ayaa si loo yareeyo shilalka dhaca loona helo nidaam sax ah oo lagu maamulo mooto bajaaj iminka ka howlgasha gobolka Banaadir waxa uu dhawaan soo saaray digreeto oo ku mamnuucayo in dekada Muqdisho laga soo dejiyo bajaaj kale oo hor leh taasi oo sii kordhisa walwalka maamulka gobolku ka qabo shilal dhaca xilligan